السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabta ku xiran Daaruliibaan Academy. Conversation 23 wada sheekaysiga 23aad. How is your internal and external condition? Ka waran xaaladaada gudo iyo banaanba. How is your internal and external condition? Ka waran xaaladaada gudo iyo banaanba. I am feeling better. Waxaan dareemayaa wanaag. I am feeling better. Waxaan dareemayaa wanaag. Since maadaama the atmosphere cimiladu is cool ay qabow yihiin today maanta, what have you intended for us? Maxaad inoogu tiragashay? Since maadaama the atmosphere hawadu is cool ay qabowdahay today maanta, what have you intended for us? Maxaad inoogu tiragashay? I have very interesting topic. Waxaan hayaa mowduuc aad u xiiso badan. An ordinary topic waana mowduuc iska caadi ah which the students kaadoo ardaydu discuss ay ka wada hadlaan an interest ayna daneeyaan. And the topic mowduucana is about wuxuu ku saabsan yahay gossiping xanta. I have very interesting topic. Waxaan hayaa mowduuc aad u xiiso badan. An ordinary topic waana mid iska caadi ah which the students kaasoo ardaydu discuss ay ka wada hadlaan an interest ayna daneeyaan. And the topic mowduucana is about wuxuu ku saabsan yahay gossiping xanta. I will not refuse, ma diidayay, but laakiin could you modify, ma bedeli kartaa the topic mowduuca. I will not refuse, ma diidayo, but laakiin could you modify, ma bedeli kartaa the topic mowduuca. Is gossiping good or bad? Xantu ma wanaagsan tahay mise way xun tahay? Is gossiping xantu good or bad? Ma fiican tahay mise way wanaagsan tahay? It is bad things. Waa shay xun. Allah banned us wuu naga xarimay to gossip in aan xamano the people dadka because maxaa yeelay it's like waa sida you eating adoo cunaya the flesh hilibka of your brother ee walaalka. So sidaa daraadeed don't gossip, ha xaman the people dadka. It is a bad things. Waa shay xun. And Allah ilaahayna had banned us wuu naga xarimay to gossip in aan xamano the people dadka because maxaa yeelay it's like waa sida you eating adoo cunaya the flesh hilibka of your brother ee walaalka. So sidaa daraadeed don't gossip, ha xaman the people dadka. Okay brother, hagaag walaal, thank you, waa mahadsan tahay. soo dulmarna mar kale. Conversation 23 wada sheekaysiga 23aad. How is your internal and external condition? How is your internal and external condition? I am feeling better. I am feeling better. Since the atmosphere is cool today, what have you intended for us? Since the atmosphere is cool today, what have you intended for us? I have very interesting topic. An ordinary topic which the students discuss an interest, and the topic is about gossiping. I will not refuse, but could you modify the topic? I will not refuse, but could you modify the topic? Is gossiping good or bad? Is gossiping good or bad? It is bad things. And Allah had banned us to gossip the people because it's like you eating the flesh of your brother
It is bad things, and Allah had banned us to gossip the people because it's like eating the flesh of your brother. So don't gossip the people. Okay, brother. Thank you. وما سنتنا خيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل ضب وحيسة بدن إن شاء الله.